السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta waxay u badan tahay in la isku dhamaan doono sida ku socod xaaladda. Trump goodiga oo goodiyay muxuu macna sameeynayaa? Yani Iran waqti uu qabtay 48 saacadood ah. Haddana waxa la yaab leh asagoo waqtiga uu qabtay ayaa waxay soo bandhigayaan leeyihiin Iran waxa idin siinayna intii hanti ahayd ee aan cunaqabateenta idinka saarnay oo aan macnaha xayirnay ee walaalayaalna badbaadiya. Waxaad u goodinaysaa haddana leedahay walaalo badbaadi. bal arintaasan isdul taagi doonaa siday macquul ku tahay iyo dabcan falanqayaasha caalamku arinta ka yaaban saraakiisha Ukraine wataan isbuuci hore sheegnay inay joogaan khaliijka sabay u joogaan maxay ka caawinayaan maxay sa arkeen aan ka hadli doonaa ayadana sidaas oo kale aan ku bilowno nacam Iran oo bilowday weerarkii 74aad ee gantaalada hadda aan kula hadlayo Israa'iil waxa ku socda jug ay ku socota و40 دقيقة كهر أي بلوضي وحالا لغا مخلا قدها تل أبيب خرحيو واوين تاسو طبعا كو شيء غيسا هذا واد قرانيسا أو دفاعي وحكا جرمالها نعم أيها نفتر كذا وحي لا يبينهين دمونة سيدا أي أسامي سي سواريخ دي حالي إله كو قرعبي وحنا أمرينيسا إسرائيل إنت لبهد حوق إنكو جيسي أما إسو جيسي إمريكا كبا يعني إن حارون تاسي نيوكلير إن لبداديو oo Iran in alla intii laga qaban karo ama laga badbaadin karo in laga badbaadiyo sababtaas ay keenaysaa leeyahay Israa'iil meelo badan oo kamid ah baylaha difaac loo mahayo ogowna hadde inta meelood ay degan yihiin marka la fiiriyo way kooban yihiin sababtaas oo ahaa inuu yiri magaciis muxuu ahaa Witkoff Israa'iil waa wadan halbam ku filan yani halbam hadii lagu soo turo u dhamaatay maxaa xalata keenay marka ilaa subaxan dhimashada iyo dhaawacyada inta tirada ah yani hatta waxa la sheegayaa dadka la yahay inay kor u dhaafayaan hadirtan 10 qof wala la yahay inay dhinteen lama oga ma sarihi dumay hoosada ku jiraan yani ilaa had baadidii socota ama baaridii socota marka almuhim Iran way bilowday wax kale akhbaar ma jiro su'aasha dabcan waxay ahayd hadaa video idin ku weydiiyay way ay ugu sheegaysaa ay u leedahay haddaan soo toornay haddaan bilownay ma kalsooniya oo alaabteena lama qaban karo ma sidaas ah mise warnimayo inaan wax wadan in ku dhufano ma rabno at least wax iska qabta yani si diyaar garow amal oo Iran way baqaysaa waxay ka baqaysaa in haday wax weyn ay wax ku dhufato ila gantaalada ay tuurayso ugu hal gantaal weeyaan wax marka qaris lagu leeyahay intaas oo dhibaato u gaarsiiyay macnaha Israa'iil marka inay isteedahay u sii sheeg hadda daalana ha qabtaane si aysan inta caroodan balay kugu dhufan ilaa qof ka weyn ma aha mis qof ka xoog weyn horta waxaan aqaasoo ma ahayn marka ayadoo taa ka baqaysa ahaan may kula tahay ama un kalsooni kula ana dhacaya marka almuhim hadda way sheegtay telefishinka rasmiga uu sheegay waa soo soconaa wala sugayaa marka waa taas wixii soo kordh arki doona Ukraine khubradooda qaliijka yimaadeen isbuuci la soo dhaafay iyo isbuuci ka horeeyay way joogeen waxay u tageen meesha as experts in macnaha khibradooda ilaan ruushay dagaal la galeen droneska sida loo soo macnaha yani riday yaqaanaan kada iyo wixii la midka ah marka sababtaas almuhim u tageen in ay caawiyaan qaliijka sida ay gantaalada Iran oo imaanay iyo droneska bay uga caawin lahaayeen sida loo soo ridi lahaa laakiin waxay arkeen intay joogeen baaridii ay sameeyeen kadib in nacam hubka iska haystaan rasaasta iska haystaan wadamada Carabta oo inaan bagaranaynin sida loo isticmaalo ha ninka mid falanqayaasha wuxuu ma taqaanaa sida hadalka ay u dhigeen Ukraine marka aad fiiriso waxa dareemaysaa inay yaabeen wuxuu leeyahay waxaan u tagnay hal drone wasidaas hal drone Ukraine ka dhahay mogt khubarada Ukraine inta dhahaya hal drone oo Iran ay soo tuurtay waxa lagu tuuraa oo leeyahay macnaha 6 7 8 9 gantaal oo Patriot ah bal 6 gantaal ka soo qaad midkiiba intaas oo milyan oo jooga 5 milyan xataa ka soo qaad hal gantaal 5 milyan ah 5 milyan 5 milyan 5 milyan 5 milyan bal isku dardar 25 milyan ama 25 kun ama 20 kun ama 30 kun ama 40 kun oo dollar kaliya lagu khasaariyay yani 25 milyan waali wuxuu leeyahay marka baashi rasaasta iska haystaan miya ma xisaab daray ka tahay ma garasho la'aan ay ka tahay inkastoo aan u badanayo leeyahay khibrad ma haystaan sababtaas keenaysa in 25 milyan iyo ka badan 30 milyan iyo 40 milyan ba ay ku tuuraan hal yani si uu soo ridi lahaa hadana wuxuu leeyahay waxa dhacaysa wili daroontaasi sida loo soo macnaha loogu dadaalay si loo soo ridi lahaa in hadana meeshii loogu talagalay ama Iran ku soo tooyin ku dhacdo ogoon hadde 25 milyan 30 milyan ku baxay sida loo soo ridi lahaa hadana ma taabanba ismihi ku dhacday marka wuxuu leeyahay yani
يعني خبرة دراجته أنا إيمان إن عكرة مريكنك فيصل قاسم مرتوا يا بين وحوليه أمريكا تعرضت أما وحي هذه لكورنتي لبعتين بدن أو كم تهي عيب أي كم تهي محايا لي نيكي حلوة وين بوتين أي لها يعني جاري كلا أنا سان خطر لها أي وحال أركي إنه وحب إسكوهين وحوليه هي وحي إيران هذا أبد لجيسا كتر جيسا معناها لإعادة أصولها المجمدة يعني هنتدي لجا حكي لجا حيري إيران أي معناها أمريكا وحي كده يعني أما إليهين إيراني هرت هنتدي هذا خاضو تعويضات قارنا وكسيننا مقدو قارنا وكسيننا أنت صواريخ هذا نعم وان كهل لنا تاشيكم مجرو فلان فرا هرمز واي هرمز مرين كان محا يعني كخلد محا كجرا sababta ay u leedahay Mareykanka fura Hormuz oo arintan marka laga diidan hadda ay u aaday goodiga hadda soo socda sheegi doono horta Hormuz ay maxad ahayd waad ogtihiin ma sharaxayno intaas oo mar ay la sharaxay laakiin marinkaasi dhaqaalaha caalamka 20 kamid ah reer Europe gaar ahaan Mareykanka si reer Europe yani halkaas u maraa iska dhaafay xataa Aasiyadan kale India iyo China iyo meeshaas u maraa waa shortcut wada gaaban oo lagu gaari waxay qabatay dowladii waaweynaa yaa marka hadda dowladahaas oo dhan ay fiirinayaan mataqaana Mareykanka waxay leeyihiin mataqaana you are the one who started adiga bilaabay arintan waa ka saade dhaxala caalamka waxa gal fiiri okay yaa ku khasaaray arintaasi ma shirkadahaasi dowladahaas waaweynaa la shirkadihii Mareykanka ee ka ganacsan jiray ee maraakiibta ilan ogow caalamka dadna waxay hayaan productski alaabtii hayaan dadna productski ma hayaan serviceki hayaan tusaale مثلا alaaba wadankan taala laakiin cid ka gadanaysa ma jirto okay sidaas oo kale alaabtan cid qaadi lahayn waa loo baahan yahay hadii xataa loo helo suuq iibsada service badan ayaa waxa ay macnaha qabta shirkadahana ay ku nool yihiin shirkadaha Mareykanka maraakiibta tirada badan ee darkaysan ayaga iskale badankooda qaabka loo xawilo iyo transaction-ka dhacaya ee lacagaha kala duwan iyo yaa iskale ayaga iskale badankooda insurance-yada waa service ilaane yaa iskale reer galbeedka iskale si Mareykanka iskale shirkadihii oo dhan ma ahan xataa kama hadlayno yani dowlad hebel oo Hindiya iyo isheega China iyo Europe khasaare gaari xataa kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa shirkadihii Mareykanka ayaa halis waxay ugu jiraan inay falisaan meeshaas la maraya hada service-kii qabanayaan aawade oo dhamaaday marka waxyaalaha jira marka waxay tahay oo keenaya hada Trump inuu ku goodinayo waan in leynaya macnaha waliba waxaan burburinaa macnaha xaruntiina ugu weyn idin siisa korontada kadibna tan ku xigtaan ku xijinayna 40 iyo marka 8 saac ayuu u qabtay 48 saac hadda already waxa baxay 12 saacadood way baxday ama ku dhawaad 20 saac ku dhawaad way baxday say kula tahay adiga macquul ma tahay Iran inay goodigaasi qaadatay yeesho Iran hadda maxaa u dhima barti ishaq maxay dooranaysaa maxay ka baqaysaa hadda macna weysamo u dooran tarta Iran waxa iska ilaalisay waysa ka jabta oo dooran ma jirtaa war hogaankooda dhaalay wax loo reebta ma laha waxay taagan yihiin soo socda ma taabateen kiina taabanayna okay Iran hadii laga garaaco marka oo korontada dam la siiyo maxay sameyn kartaa طبعا Israa'iil ay ku dhufanaysaa Israa'iil power plant-geeda meesha korontada ay ka qaadato meesha ugu weyn waa hal waxayna siisaa boqolkiiba 80 door macnaha boqolkiiba 80 iyo 600 700 ma aqaan inta hadaan xusuusto adiga 80 iyo 5 ka soo qaad 85 ayaa Israa'iil oo dhan korontadeeda uga imaata hal meel macnaheeda Israa'iil hadii laga damiyo oo laga dhufto Israa'iil oo dhan dam dhacdo weeyaan macnaheeda Iran oo imaw marka wadan weyn weeyaan Soomahan Iran marka ilaa ay 4 meel lagu tilmaamaya korontada yani uga imaanaysa mid ugu weyn hadii lagu dhufto boqolkiiba 40 ayaa meesha ka baxaya marka macnaheedu waxa weeyaan mid ugu weyn hadii lagu dhufto Iran oo dhan ma saameynayo laakiin Israa'iil hadii lagu dhufto Israa'iil oo dhan saameynaaya farqi waa u jeeda Soomahan dhinaca kale bal ka waran Iran hadii lagu dhuftay xanuunsato oo ayadana Israa'iil kale inay ku dhufanine ay khaliijka oo dhan ka damiso waa taasa in isku baabi'i doono dhibaato ka dhici doonto meeshaas marka aad ka arkaysaa almuhim in isku baabi'i u badan tahay hadii Trump oo arintaas sameeyo ma sameyn doona waa su'aal in badan waxay dhahaan waan sameeyna way sameeyaan laakiin ila ma ahan falanqayaasha qaarkood sidaas ay qabaan inuu sameyn kari macquulna inaan ahayn
hadduu sameeyo ay tahay waali macnaha iiraan waxay u badan tahay inay ku dhufato ayadana ayadoo nuclear ugu dhufto yacni waa la isku baabi'i doonaa siday u badan tahay المهم انت اصلا كسو قبل السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته